مصر كهر روما البحنمدي ugu horeysay waxay ka bilaabatay hal meel meeshaas waa dalka Iraq laakiin boqolkiiba 90 dadka ma oga xaqiiqadan dhulkii Mesopotamia waxaa ka dhashay qoraalkii ugu horeeyay magaalooyinkii ugu horeeyay shuruucdii ugu horeysay laakiin waxa dhacay kadib waa wax ka yaabin doona السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسود هذا جنال كينا حفور ميديا برنامج كيني حكت عالمك أنيقو محمد أحمد حرسي درر maanta waxaynu safraynaa mid ka mid ah dalalka ugu taariikhda dheer dunida dal ay ka bilaabatay ilbaxnimadii ugu horeysay bini'aadanka waa dalka Iraq dhulka maanta loo yaqaan Iraq waxaa hore loogu yeeri jiray Mesopotamia magacan wuxuu macnihiisu yahay dhulkii labada webi oo kala ah Tigris River iyo Euphrates River webiyadan ayaa sababay inuu dhulku noqdo mid ku habboon tacabka beeraha taas oo dhalisay ilbaxnimadii ugu horeysay taariikhyahanadu waxa ay sheegaan inay meeshan ka bilaabatay nolol magaalo iyo dowlad abaabula dadkii ugu horeeyay ee halkaas ilbaxnimada ka dhisay waxay ahaayeen dadka Sumerianiska qiyaastii 4,000 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise dadka Sumerianiska ayaa dhisay magaalooyinkii ugu horeeyay magaalooyinka ugu caansan waxaa ka mid ahaa Ur iyo Uruk Sumerianiska waxay sameeyeen waxyaabo bedelay taariikhda dunida waxayna abuureen qoraalkii ugu horeeyay laakiin taariikhda Iraq halkan kuma joogsan boqortooyo kale oo aad u awood badan ayaa dhalatay waana boqortooyada Babylon magaalada Babylon waxay noqotay xarun awood leh boqorkii ugu caansanaa wuxuu ahaa Hammurabi wuxuu sameeyay sharci caan noqday oo la oran jiray Code of Hammurabi markii dambe waxa awood yeeshay boqortooyadii Assyrian Empire caasimadooduna waxay ahayd Nineveh Assyrianiska waxay caan ku ahaayeen ciidamo xoog leh iyo dagaalyahanimo laakiin qarnigii 7aad taariikh cusub ayaa dhalatay islaamka ayaa wax uu gaaray dalka Iraq magaalada Baghdad ayaa noqotay xarunta aqoonta dunida xilligii khaliifada Cabbaasiyiinta waxaa la dhisay xarun aqooneed oo caan noqotay oo la oran jiray House of Wisdom sanadkii 1258 waxaa dhacay duulaan taariikhi ah ciidamada Hulagu Khan ayaa weeraray Baghdad dhacdadan waxaa loo yaqaan Siege of Baghdad oo dhacay sanadii 1258 taariikhda Iraq waa mid ka badan 7,000 sano waa dhul ay ka bilaabatay ilbaxnimadii bini'aadanka haddii aad rabto ama aad xiisaynayso barnaamijyada noocan oo kale ah iloobin kanaalkeena Facebooka ina soo faro garayso sidoo kale YouTube-keena subscribe saaro share like tan hanala dhaafin anagana waxaan u tahay dhiirigelin hadsanid